waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa qoraagan dhalinyarada ah ee mudakarka ah ee runtii buugan qiimaha la qoray waxay damqay oo aad ii soo jiitay colaadaha iyo ka hadalkooda oo ka hadlay anigu waa arag baan hay colaadeed oo inaan dhitinayo waad arkaysaan adika midi ka dhitinayo aniga khilaaf baan ku dhaawacmay khilaaf siyaasi baan ku dhaawacmay waan nacabahay markaa colaadaha aad baan u nacabahay meel kastoo colaadi ka dhacdana waxaan ogahay in cidda wax ku noqota ay tahay dhalinyarada boqolkiiba 80 marka dhibaata dhacdo cidda wax ku noqota ama ku naafowda ama ku dhimata ama ku dhaawacanta ama waxaan ku dhisi kale wuxuu soo gaaraan waa dhalinyarada iyo hooyooyinka weyn hooyada ku goblanta hooyada waxaan ku agoomowda marka waxaan aad iyo aad uga xumahay colaada gobolka Sanaag waxaan ku soo noqnoqotay degmada Ceelaf weyn waxaan aad iyo aad halkan hambaliyo uga dirayaa guddigii nabadda gobolka Sanaag ee uu hogaaminayay Suldaan Maxamed Suldaan Xirsi Qani oo wigii dhaweyto madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ay qodobo nabad ah waxaan ku saabsan gobolka Sanaag iyo arintii waxaan ku shaqada iyo hawsha isla soo qaadeen oo meel isla dhigeen ilaahayna waxaan ka baryayaa in inta kalena dhameystiranto waxaan bogaadinayaa Suldaan Maxamed Suldaan Xirsi Qani iyo guddigii uu hogaaminayay ee hawsha runtii galay waxa kale oo aan ku boorinayaa madax dhaqameedka kale inay nabadda ka shaqeeyaan sida Suldaan Maxamed Suldaan Xirsi Qani oo nabadda qaataan oo nabadda ka shaqeeyaan oo ogaadaan madax dhaqameedku inuu ka nabadda ka shaqeeyay ama 2011 baan dhaawacmay isku dhicii khilaafkii salaadiinta Soomaaliland qayb kamid ah hukuumadii madaxweyne Cigaal anigoo arday baan dhaawacmay bowdada ligta midug baan ka tabay balyoon iskiil darro walay kabay way waxaan ku markii la kabay laba bilood nuurada ugu xidhnayd ba haddana sawir la saaray maadaama xabadu meel dhow iga soo dhacday oo aan bowdada aad ay u burburtay dhakhtar baa la geeyay dhakhtarkii waxaan ku way kabay hay kabay laba bilood ka bacdi buu ma kabna haddana dib baa lay qaaday berbera lay keenay dhakhtarka berbera oo markaa Balch Hospital ay qolo koobil gacanta ku haysay waa jilibka la iga dalooliyay miisaan baa la igu xidhay waa la kala jiiday adinka muddo 3 bilood baan ku jiray dhakhtarka markii dhakhtarka muddo 3 bilood ku jiray Hargeysa lay qaaday nuurad baa la igu xidhay nuurada igu xidhnayd ba haddana waxa igu xidhnayd muddo runtii 3 bilood aakhirkii baa la soo celiyay nuurada baa la iga tiray socod baa la igu yiri anigoo soconayo Hargeysa muxuu halkii jimicsiga isbitaalka u dhaweyd ku qaadanaya jimicsi ayay meel yar ila siibxatay sanadka bacdi dhaawacayga haddana bowdada dib uga tabay waa la qaaday haddana qaliin baa la igu sameeyay qaliinkaas markii la igu sameeyo bir la igeliya haddana ay sanadka bacdi dhaacama bilowday waxaan u soo qaadanayaa dhibaatada inta leeg dhalinyaradu inay colaadaha ka fogaadaan inay nabad ay wax ku leeyihiin haddii colaadi dhacdo dhalinyarada ayaa wax ku noqonayso ku dhibaatoobaysa mar labaad iyo mar saddexaad baan qoraaga dhiiri gelinayaa waxaan leeyahay dhalinyaradu waxa qorto